هي هو على كرف تاجنا هاي وزير الدين قالقة ماما مؤمن الشيخ عمر ونوبة العربي وزير الدولة وزارة عدالة قصورك ووزارة آدو عروس وأوباها قف أرتي ودلالي عدالة لو نيبو أركا يلا وحنولنا هاي ولا أصيبي سوى waxaan baryeeynaa oo aanu leenahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya magacaabista iyo booska uu dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda waa mid ay ku manacsan yihiin dhammaan bahda ka soo jeeda reer Banaawe aad ugu taageerayaan hadday tahay qaran hadday tahay deegaan dhammaan waa qof lagu manacsan yahay magacaabisteeda waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare waxaad asiibtay qoftii mudnayd ee deegaanka ugu qaalisanay uguna shaqada badnayd uguna cadaalada badnayd inaad maanta xilka ugu dhiibto waa mid aan aad u taageerayno oo aanu taageersannahay oo aan la garab taagannahay shaqadeeda inay ilaa u fudeeyo annagana aan joogtiyo hooba la garab taagannahay inaan la shaqayno sidoo kale maanta waxaan isugu nimid inaan golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo cod aqlabiyada ku ansixiyay golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib maanta markii loo qaaday codkii aqbalaadda dowladda federaalka in la horgeeyay baarlamaankana waxaanu leenahay waxaad ku mahadsantihiin inaad oggolaateen in golaha wasiiradu ay howlgalaan in waxaanu leenahay waa arrin aanu soo dhaweynayno maadaama dowladda ay waqti dheer ku jirtay gaan waxaan si gaar ah u leenahay shakhsiyaadka cawasha ka buka ha ku qoslaateen qofka la doortay ama la magacaabay ama marka loo dhigay xilkaas inay tahay qof aan ku qanacsanahay cid aan ku doortanayna inaysan jirin shakhsiyaadka hooska guuxayna waxaanu leenahay annagu haddaanu marka ka soo jeeda deegaanka Banaawe mowduuc waxay agteena ka tahay qof qaali ah oo u taagan horumarka dadka iyo deegaanka Banaawe waa qof u taagan inay qaranka Soomaaliyeed astaan horumar leh u noqoto waa qof u taagan in ay ka shaqeyso midnimada ummadda Soomaaliyeed ma aha qof qabiil ah waa qof qaran hadda waxaan leenahay shakhsiyaadka u diidan ama cawasha ka buka ee aaminsan inaysan xil heli karin ha ogaadeen maanta inaysan iyaga looga fadhin xilkan uu yahay mid ilaah uu bixiyo allah banaankiisa quraanka ku sheegay tuuti mulku man tashaa wa tanzi'u al-mulku mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa maanta sida loo muuqatay golaha baarlamaanka waxaa ka dhacday in shakhsigu ilaahay dowladda ku ciseeyey shakhsiyaadka cawasha ka bukana ee meesha ku hareen haddaba ogaano inaan u baahannahay dowlad waxaanu nahay dowlad ku nool waxaanu nahay shacab u hoggaansan nidaamka dowladnimo shacab jecel in loogu adeego nidaamka dowladnimo aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waxaanu leenahay maama soo dhowow shacabkaadii aad matalaysay ee degmada Banaawe waxay ku leeyihiin aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waana kugu garab taagannahay barnaamijkaas xilka culus ee lagu magacaabay ilaahna waxaan ka rajaynaynaa inuu kula garab galo kuna fududeeyo waqtiga cariiri waa awgeed waxaan jecelnahay inaan soo koobno khudbooyinkeena haddana waxaan rabaa inaan dhiibo odayaasha dhaqanka oo aad maanta ugu faraxsan xilkaas iyo magacaabistaas iyo soo dhaweyntaas waxaanu leenahay waxaa halkan isugu yimid ma aha qof ama shakhsi ama beel waxaa meeshaan fadhiya waa golihii dhaqanka degmada Banaawe waxaa fadhiya ururadii bulshada qaybooda kala duwan haddii aan lahayn ururka haweenka oo lafdabarka degmada ah ururka dhalinyarada ururka isboortiga dhammaan caaqiliinta iyo waxgaradka kale
gudoomiye xaafadeedyada degmada Baraawe looma ka harin soo dhaweyntaada iyo hambaliyadaada maama waanu ku garab taaganahay haddana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo xafladan qiimaha badan farxaddan lagu abuurtay noona horseetay in degmada Baraawe maanta ay ka soo jeedo maamul muumiro ay u noqoto wasiir ay ku hiigsadaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا وسلام عليكم أولك عوانك أولك دليلنا سلاكيسة دمان وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حفلتنا وقيمة لأمات وحالون مروة مورس وزير دولة عدالة iyo dastuurka marwa moomar shaqada ma sha Allah waxaan isee horta ninkii maqal asile maqal ma eegna ma maqna waa inta way meesha intaas su'aalahay ma sha Allah ninka maqal asile iska maqal waxaan inahay waxa ku roonay inaa oranjiin si soo dhintay hadii ma aan hebla taas waay waxaan dhihlahay waxaan aad u baryayna madaxweynaha حسن شيخ محمود يوم رئيس الوزراء حمزة على برة ما شاء الله واسطة وعليه ليش مرة دكتور مسيسة ما شاء الله وأنا اللي حملينا وعليه هاي دينه وعن روح الهس وزيرتنا وقارئنا صدق أبدي والدنيا أنت ساري وعلينا والدنيا أنت ساري وعلينا سير اليوم هاي والدنيا جريو هاي